muqdisho qof walba dil toogasho ayuu ku xukumaya. wiilka dhalinyarada oo taliyaha oo hadda soo baxaya ayaa asagoo la jooga xaaskiisa aroosna ahay ayaa shan lagu dhuftay si xun ayaa loo dilay. waa muqdisho dhexdiisa bal mar walba waxaa dhacay dilalkan lagu sameynaa dadka shacabka iyo dadka taliyaasha. wiilka taliyaha maanta Allah naxariisto aad u naxariis geeridiisii waa qof waxa waay maaragtay shaqo wanaagsan taliye wanaagsan oo howl gacan qaban jiray laakiin si gardaran la ayaa shan xabal u dhuftay asagoo gurigiisa ugu galay oo xaaskiisa la jooga ayaa shan lagu dhuftay. bal fiiri muqdisho dadka jooga ama askari ahaaw ama taliye ahaaw ama shacab ahaaw toogasho ayaa ku xukumantaa. subxaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Soomaaliya wiilkan dhalinyarada waa wiil wuxuu ahay sabaxayo ahay sida wuxuu ahay farxaan qarol ayuu ahay booska ayuu ku jiray wuxuu ahay sabaxayo fircoon ahay laakiin dad hoosh ka xun shaqadiisa ka xun ayay inay gurigiisa ugu tageen ayay shan ku tiiriyeen asagoo xaaskiisa weliba qaylinayso xaaskiisa oo qaylaan afki. subxaanallah aad baa waxmaan muuqaalkan qabta meel argaasiye waa geeri xanuun badan waa geeri qof walba oo taliyahan yaqaana taabanaysa weliba waa ogtahay geerida way kala daray badan adoo xaaska la jooga bishii malabka ku jira iska baashaalaya in xaaska horteeda lagu dilo ayadoo qaylinaysa loo aabayeen oo shan lagu dhuftay halka ku geeriyo aad baa waxaan waa geeri xanuun badan waay war muuqaalkan qabta meel argaasiye wiilka taliyahaasi waa taliye soo baxay ayuu ahay mustaqbal leh gacan ka xaqdar ayaa disha oo shan xaba ayaa lagu dhuftay aroos ayuu ku jiray xataa aroosnimada xataa laguma deynin oo dad xun nasab maad dadka wiilka maanta dilay aroos ayuu iska jiray bisha malabka ayuu ku jiray diwi ayuu iska jiray buuq la'aan markaas bisna shan xaba ayuu ku dhufteen. waa geeri xanuun badan aad baa waxaan xawla geeridaasi Soomaaliya muuqaalka qabta meel gaarsiiya waa geeridii waxaan ugu bandhig ama wiilka leeyahay wiil aad u aqaano waa taliye howlkara shaqo wanaagsan haya dadku haya oo booliska aad ma dhow guursaday aroos ku jiray jawi degan isaga jiray oo macaan misna jawigii geeri ugu bedeleen asagoo xaaskiisa la jooga ayaa la meed garaacay oo nafta ayaa si xun looga qaaday. subxaanallah muqdisho askari ahaaw taliye ahaaw shacab ahaaw qof kasta ahaaw toogasho ayaa ku qorata mar uun adii si xun waa lagu dilayaa sababtoo taliyahani gurigiisa in lagu tagay ayaa lagu meed garaacay waa laga soo tagay. bal fiiri wuxuu galab taageeratay ma jiro. Soomaaliya muuqaalka qabta meel gaasi isla askarta dawladda ayaa sidaan wax yeelaysa oo 10 xaba ay xabad ku dhufteen meel jirkiisa ka fiyo ayaa la waayay waxay ahayd jagada oo qabta kaliya ay u diideen inay jagadaas wiilkaasi hayo. Soomaaliya muuqaalka meel gaasi aad baa wax mahay wiilkaasi gardaran loo dilay oo naxariis darada loo meed garaacay weliba si xun oo bilaadan ka baxa xabad loo laay misna asagoo hooyiisa jooga xaaskiisa la baashaalaya in guri lagu tagay la meed garaacay. Allahu akbar wax aad u xanuun badan waay adigoo xaaska la jooga aroosay bisha malab ku jira in xabad lagu meed garaacay weliba dad waxba ka gaartay in guriga kugu imaadaan guriga kugu soo galaan ay kugu meed garaacaan. Soomaaliya dadkaani dadka dhiigooda bilaash ay u daadinayaan oo dadkii dhiigga ayaa ka batay qofka bilaa macdara ayaa loo dilayaa askari ahaaw taliye ahaaw ama shacab ahaaw toogasho ayaa ku xukuntay. haddaba marba aad joogto muqdisho waa si weysa in gardaran lagu dilo in bilaa macdan dhiigga loo daadiyo muqdisho qofka ka tagaa ayaa dhiiggiisa bilaa macdan loo daadin oo malkamad kaliya ay qaban karo. haddaa joogto muqdisho dhiigga in loo daadiyo bilaa macdaro waa si weysa wax mar walba aa koryoonayso. muuqaalka qabta meel gaarsiiya taliyahani geeri xanuun badan soo gaartay aad baa u xumaay asagoo weliba xaaskiisa qaylinayso cabaadayso oo afki kala tagay xabad la dhacay shan xaba ay ku dhufteen. subxaanallah war muuqaalka shaqareeya askari ah ama taliye ah adii toogasho kaliya ayaa si weysa.